محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا سيدي واللي عجز معك معذور لا صار ما يعرج للافلاك وتزار. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس صدورك العلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا من كل هم أصبحنا فيه وأمسينا فيه فرجا ومخرجا. اللهم صل على سيدنا محمد ذب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. إخوتي وأحبتي في الله، موضوعنا إن شاء الله تعالى عاوة waxaanu doonaynaa in sha allahu inaanu wax ka sheegno aan ku soo qaadano calaamaadka saacadda qiyaama. saan ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan buu qur-aanka ku sheegay aayado badan. saacadda qiyaamo waqtiga ay dhaxayso ilaahay baa la khaas noqday cilmigeeda, cidna ma ogaan karto. yas'aluunaka cani saacati ayaana mursaaha. saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa? yas'aluunaka cani saaca qul inamaa cilmuha cinda rabbi laa yujalliha liwaqtiha ilaa hu. saacadda qiyaamo waqtiga ay dhacayso ista'thara allahu, ilaahay baa la khaas noqday.
waxay ka mid ilaahay uma og cilmigeeda ilaahay baa la khaas noqday cidna ma ogeysiinin ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan oo aad u badanna qur-aanku wuxuu ku soo celcelinayaa saacadda qiyaamo markay dhacdo ama qiyaamuhu sida uu u weyn yahay culayska uu leeyahay dhibaatada dhici doonto yaa in badan ilaahay noo sheegay qur-aanka noogu sheegay yoom weyn oo aad u weyn oo howlkiisa iyo dhibaatadiisuna ay aad u badan tahay waqtiga uu noqon doonana aan lagu ogeysiinina aan lagu sheegin waayo maalinkaas ma berri buu noqonayaa ma bacda siniin buu noqonayaa allahu aclam ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiis saxiixa noogu sheegay saacadda qiyaama inay maalin jimcaha dhici doonto laakiin jimcaday tahay lama ogo jimcadan hadda nagu soo xigto miya mise waa jimcad dambayso lama garanayo maalinka jimcada ah makhluuqa intiisa kaloo dhan way cabsanayaan way qarqarayaan xataa tadluca shams ilaa ay qoraxda ka soo baxda maxay la cabsanayaan inay qiyaamihii noqotay ka yaabayin ilaa ibni aadanka mooyaane ma oga asagu waa kaafil waa iska maqan yahay siduu sidaa u maqan yahay unbay qiyaamuhu ku kor dhacaya dushoodu ka imaanaya saacadda qiyaamo markay soo dhowaato calaamaad bay leedahay calaamadahaas waa calaamado laba qaybood weeye kuwa yar yar oo fara badan iyo calaamado waaweyn oo dhowr ah saacadda qiyaamo markay soo dhowaato calaamadaha waaweyn intaan la gaarin calaamadaha waaweyn mar hadday dhacaan qiyaamihii waad joogtaa laanna way isdaba yaallaan wax kala dambeeya ma aha laakiin calaamaadka lagu garanayo markay saacadda qiyaamo soo dhowdahay calaamadaha farada badan ee nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah dadku inay ka tegayaan diinta oy adduunyada u jeedsanayaan raqbadii aakhiraa yaraanayso in aakharo laga fikiro ama loo camal falo ayaa yaraanayso dadku hamigoodoo dhan adduunya noqonay فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى قفكي كبرو أو قاقا أو الدنيا دورتو آخرنا كدورتو نارت الجحيم اللي يراد أم مرجعي سنقونيا ماشي وكوه يني يصعد وجحيم إلهي لي سبحانه وتعالى ورسولك عليه الصلاة والسلام من وشيغي حديث إمام الترمذي وسنن كيسا كورني إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء ومديدو هديشن إيا طبان خصلة سمايان بلايا أيا كدقيسونا عليه الصلاة والسلام فتن كاس يدباتوين كامر كي بلاودانا ساعد قيامة ميل بجرتو إذا ظهروا شن يطوانك خصلة وامحي ولا ويدي النبي صلى الله عليه وسلم وما هن يا رسول الله محيهن شن يطوانك خصلة قال وحي النبي إذا كان المغلب دولا إذا كان المغنم غنيمة مركا النقط دولا وحدتك قارنا إسكا قادنا دول وحال إرادة وحدتك كدحية غنيمة وحدتك كدحية مركا دتك قارن بيكو وريغي سادات خاصة إسكا قادنا يقول والأمانة مغنما أمانة دي اللي قول ديبتين وحي نقون يساب غنيمة وفعل لكم وحي اللي هو أمانية وغنيمة كدغنية ورو قادنا يوم لقد السوغيو إنو كان وحي سوعلي والزكاة مغرما
zakadii xoolaha ka waajibaysana waxay noqonaysaa dayn un, waa lagugu leeyahay un, ma bixinayso, waa lagugu leeyahay un, waa maqram, waa dayn. wa ataaca arajulu zawjatahu wa caqa ummah, ninku xaaskiisuu adeecayaa, ayaduu talada u dhiibanayaa, wax walbaba ayaduu ku adeecayaa, hooyadiisna wuu caasinaya, wuu goynaya. hooyadii ka tag hadday tidhahdo xataa wuu ka tegaya. wa caqa ummah, hooyadii caaq buu ku noqonaya. taladii iyo maamulkii oo dhanna xaaskiisa u dhiibanaya, ayada unbuu daba socda. reerka haddii yacni dumarku hogaamiyaanna weligii ma liimaanayo. lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a, buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. qoom weligood taladooda u dhiibtay naagta wali siiyey ma liibaanayaan. xaaskaaga inaad la tashata waa loo doonayaa, reerka wixii gudihiisa ay yani ka shaqayso talisa waa loo doonaya, laakiin wax walbaba haddii lagu adeeco markay dhibaatadu jirto. wa barra sadiiqahu wa jafaa abaah, saaxiibkiisuu baari u noqonayaa, aabbihiina waa goynayaa. ninku waalid ma jiro, lama ixtiraamayo, qowlkiisa lama qaadanayo, saaxiib un bas, nin walba saaxiibkii buu la socdaa. dadka asxaabtoo isla socdana hadhow ayaga unbaa la isla soo kulmin doonaa. wax alla wixii saaxiibnimo adduunyada saaxiibku ahaa oo dhanna way coloobi doonaan ilaa dadkii mutaqiinta ahay oo ilaahay ka baqaya mooyaane. alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduw ila almuttaqiin baa ilaahay. dadkii yacni saaxiibada ahaa oo adduunyada markay joogeen xumaanta saaxiibka ku ahaa, hadhow qiyaamaha cadow way isku noqon doonaan, way is eedi doonaan ilaa dadkii ilaahay ka baqo mutaqiinta mooyaane, waxa wanaagsan ku saaxiibay mooyaane. wa barra sadiiqahu wa jafaa abaah, aabbihiisuu goynayaa. wartafacat ilaswaatu fi lmasaajid, sawdkii baa kor noqonaya, masaajidda ka kor noqonaya. waktigii hore masaajidka dhexdiisa in lagu hadlo ma suurtageli jirin. mar alla markuu qofku masaajidka soo galo, masaajidka maxaa loo soo galaa? licibaadati illah. masaajidku waa baytullah, soo ma? guriga ilaahay markaad soo gasho cibaadaad u timid, waxaan cibaado ahayn munaasab kuuma ah inaad la timaado. qofka masaajidka soo galay waa qof ilaahay soo ziyaartay. qofka wax soo ziyaarto martida ana xaqiisu waa maxay? inuu xushmad iyo ixtiraam la yimaado. ilaahay baad soo ziyaaratay jalla jalaaluhu, ilaahay baad marti u tahay, gurigiisii baad soo gashay, raxmadiisii iyo macnaa makfiradiisii yaad doonaysaa inaad hesho. haddii aad marka masaajidkii dhibaato iyo dembi ku samaysa ka warno, buuq iyo qaylo, min calaamaati alqiyaama wey. fitanta iyo balaayada calaamaadkeeda weeye dadku ay fitnoobeen wey. wartafacat ilaswaatu fi lmasaajid, sawdkii baa kor u kacayo, masaajidii baa lagu qaylinayaa. wa kaana zaciimu lqawmi ardalahum, wa kaana zaciimu lqawmi ardalahum, qoomka ninka ugu wanaagsan yani zaciimkooda ninka madaxdooda adhe, madaxdooda oo laga dambeeya waa midka ugu xun. qabiilada ninka ugu xun baa mas-uul laga dhiganaya, hogaankii la wareegay. waa sida hadda taagan oo iska muuqata dee dadka maanta macna hogaanka ummadda la wareegay oo qabiil la arkaba horjoogaha u ah, maxaa la yidhahdaa? waa dadkii ugu liitay wey, dadkii ugu liitay. dadkaasaa hogaankii la wareegay. wa kaana zaciimu lqawmi ardalahum, qoomka zaciimkoodii wuxuu noqonayaa kan ugu liitou noqonayaa, ugu daliilsan buu noqonaya. wa ukrima arajulu makhaafata shari, ninkii baa la karaamaynayaa
shartiisa cabsi laga cabsanayo darteed ee loo karaamaynayo. wanaag iyo jaceyl looma karaamaynayo, in wanaag laga helo looma karaamaynayo, xumaantiisa yaa laga dhowrsanaya, markaasaa loo karaamaynayo. واتخذت الغينات والمعازف واتخذت الغينات قبل هيسيالا وفنانين أهل سميسانية قبل فنانين وهيسو قينات قبلها هيسال إلى ملكي يعني مالها اللي يسوي ماذا إيو مالها اللي قعب إيو وحكو هيسال إلى ذا القينات والمعازفنا وحيالها لقراعية وموسيقى إيه وحلا مثل لقراعية. ولعن آخر هذه الأمة أولها ومدن آخر كيدي دماء ولعن ذيان وحكش لغيان أول كل تذكي هرا دل خير بدن بيان زمان تذكي هرا خير كالهابي لعن ذيان وحكش لغيان. arrimaha haddaad aragtaan buu nabigu عليه الصلاة والسلام فليرتقبوا عند ذلك ريحا أو خصفا أو مسخا calaamooyinka haddaad aragtaan dabayl suga buu nabigu leeyahay dabayl duufaan lagu halaago dadka duufaan baa imaan doono halaagay أو خصفا خصف بعدعي للجرير بعدعي أو مسخ بعدعي بابا لو مسخ يا أمديو وحكى له بدل يا على مدى صورنا إنه مقدام بعد مدى أنت هذا بدن وقت هذا أنجونا أنت هذا بدن على مدى هو المقنع وحو النبي لي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري وكله بادروا بالأعمال 7 قبل 7 بادروا بالأعمال ورعماش ونكسنوا دقدقة 7 تضبط انتان لقارن هل تنتظرون إلا غنى مغنية ورما واحد سوغيسان غني نمئي حولاء تكو قوقران وتكو كبرتان أو فقرا منصية فقر إذن هلمانسية أو وناقي إذن هلمانسية مياه سويسان أو هرما مفنيا دقني ما ويل إنتان نقطة لعيفتود وحبق قبو ويدو توربع شمياه سويسان أو موتا مجهزا geeri miyaad sugaysaan mawd miyaad sugaysaan idin sagootiyo qabriga idin sagootiyo waa la idin qaadaya qofka dhinto horaa loo qaadaya aw dajaal miyaad sugaysaan fahuwa sharru qaa'ibin yuntadar buu nabigu عليه الصلاة والسلام وشر مقن أو لسوجي وحلا سوجي يوم مقن وح أو الشر بدن ويا دجال أو الساعة ساعة قيام 100 سويسان فالساعة أدهى وأمر ساعة قيامين بعد 100 سويسان فالساعة ساعة أدهى من كل شيء مصيبة كسر على ساعة قيامة كوين وأمر أيضا أنك خرالوي وح كسر نباطه ولا مر ساعة قيامة ما كسيدر ونقول عليه الصلاة والسلام انت لقارن علامات كاس عمل فلا ونقول عمل فلا وعبادة ودقدقة وخير كسمية علامات كآخر زمن كوحاكمة أن يرفع العلم ويظهر الجهل علمك إن لكورياله بموت العلماء علماء بعد ما نس عالم كان عالماني وكي كان عالماني علمي وقرنغني ويظهر الجهل جهل بعد ظاهري ويكثر الزلازل والفتن زلازشي بالقرير كي فتنة دي بعض الناس ويكثر الهرج هرج بعض الناس قيل وحليل وما الهرج
هرجوا ومحل رسولك إلهي وقال وحنا بيقول القتل دل كيون دل بابدنا وحال جاري دونا النبي صلى الله عليه وسلم وقت وننكو مركو قبرك صومر قبري وصومر يا مركز وتمنينا يا ليتني أكون مكان هذا الله شليتني إذا قبرك محناني يقول نقوم جاري وتمنينا يا غفر dhibaatadii markay badatay fitnadii baa badatay dilkii baa badatay dhibaatadii baa badatay markaas qofku inuu iska dhinto tamaninayo waxa soo dhan waa calaamaadka qiyaamaha way inay qiyaamuhu soo dhowdahay bay ku tusinaysaa calaamaadkaas oo idin waa calaamadihii qiyaamaha way marka ugu dambayso ay arintu gabagabada tahay waxa imaan doono calaamado waaweyn oo 10 ah 10ka calaamad haday dhacaan saacada qiyaamo wali jooga ninka la yiraahdo Xudayfatu al-Ghifari radiyallahu anhu warda saxaabiga la yiraahdo يا وحليه اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أنا ومالي شيكيسنين أي رسولك نويبي فقال وحي النبي مما تتذاكرون حال كشيكيسن إيسان مركز سيدتك مجلس كفدي وحي إلى ذلك نتذاكر بالساعة ساعة قيامة كشيكيسنين ساعة قيامة ودو ذهي waxba kama dhimano haday dhacdo dhibaatooyinkeeda iyo waxa dhexdeeda dhacayo saacada qiyaamada ka sheekaysanna rasuulka Ilaahay faqala wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayat saacada qiyaamada ma dhacayso ilaa aad aragtaan horteed 10 aayadood 10 calaamo waaweyn ilaa aad aragtaan saacada qiyaamada ma dhacayso طبعاً كيف النبي تريه صلى الله عليه وسلم فذكر النبي وحوشه الدخان قيق بعد عدون قيق علامته هو وين قيامه كبيرها قيقاس فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بإلهي واحد سكتان نبي محمد مال مرأي سمد الله إيمان دونتو قيق سيد الروب لو سوغي يقيق بعد قبصان دونا وركنا والدجال دجال با كم إذا ساعد قيام على مده دواوين الدجال أكبر علامات الساعة ساعد قيام على مده كان أقوي ويا دجال أقول أني بعتذر بدن دجال محدثين تي مفسرين تمركي كورميان قصص بدن بالغوريا احاديث افر بدن وصحيحين في سنن كما كسو هرتي النبي كورمي صلى الله عليه وسلم وحو النبي الهي سو ديري مجرو نوح لغا سو بلاو يوم بعده نبي الهي سو ديري مجرو الا امتي سو اوغا دغي جيري دجال أنا هو أني كجد جيا وحنا يدين شيء جيا علامة نبي إجاه الرجل ونكو شيء ما ندين شيء دون دجال وحو شيء دون إله نبو ونكو صباح إله بان هاي بولي دتك أسجع أضيعه والوف دنينا يا وحدتك إنه هذا أمرين يسينه يعني جنية النار عمله وطايو waxa uu suurada jannada oga eegay uu dadkii asaga raacay uu u nicmaynayo waa cadaab waxa suuradan kor cadaabka oga eegay dadkii asaga diiday ka hor imaaday uu ku cadaabadayna waa janno uu soo bixi doonaa 40 maalmood buu adduunyada dhan ku maray 40 yawman
أفرتن كمالموت يوم كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالأسبوع وسائر الأيام مثل أيام الدنيا أفرتن مالموت وهل مالين وسنة ليجي هاي هل مالين وبل ليجي هاي مالنا أسبوع بولي انت كلا صدن يتدور كلا ومالمهن الدنيا ده عادي وكلهم أفرتن كابريب الدنيا ده نكون مريض مقالب مجرته إلا الدجال وقليا إلا مكة والمدينة مكية مدينة يعني حرمين كومبونا قليا مكية مدينة ملائك با ديار ودوين كذا يمل كستو كم إذا تاجن لبلا حرم ودوين كذا تاجن ما سو قلي كرم ملائك با سفر وديس بعين ما من بلد إلا سيضعه دجال إلا مكة والمدينة بلد مجرى إلا دجال وقلي دونا وكو استاقيا وقلي دونا إلا مكة والمدينة مويان مكة هي مدينة مويان مكة هي مدينة مقالي كرو مجرى ودوين كذا ودكمدا إلا ملائكة صافين يحرسونها meel kasto oo labada xaram kamida malaa'ig ba sida u taagan oo safan oo ilaalinaya inuu dajaal soo galo yakaan dajaal hadda wuu nool yahay nabiga ka warramay calayhi salaatu wasalaam meel bad dhexdeeda jasiirada ayuu ku xiran yahay هذا ما كحرين وسلسلة ديزين وقت جيس مركي لجارة ومصابح يا أنت كهر رئيس الله ما قال أنا ينصابح حديث إمام مسلم وورنا يا غير كيبا يورنا يا صحابي اللي يراد تميم الداري أيا وحولي هاي أنه صد لنا أيان دون رعنة بدأ أيام قالنا يقول بدي أو كعسن أيام قالنا فلعب بنا الموج شهرا هل بل أيهرك كل بدع نوت وبدي اسكت حسعنهم بل مركي كجرا بدي مركي تمام بل جزيرة أي دونتي جارتي جزيرة دي ما كحرنا وان بحنا بنانك وانو بحنا مرة الله مركا بنانك وبحنا دابت بان نقو هرتمت دابت لا يعرف أنا لقرنيني ما هي أذكر المية أم أنثى وحيتها لما قرنين لكثرة شعرها ولدول شعرها تما ديك يدو دان تما سلا أقول ديسن لما قرنا يا وحيتان لا بيدتك وحيتان لما قرنا وانو لي ابني مركان ارني وان كان نحن بولايه تموداري ويبدل هذا الشو هذا الكبني ادم كو هذا الشيء يا ايها القوم ما انتم قوم يوم حاتين مركاس انو انغو دد بان نحي او بدا كسو بخاي ادغو maxaa lahayd ووحا من أمالينا يرادين مركي نلا هذا الشيء والشيطان ميا وحو وامحان مركاسة وحي تري أنا الجساسة أنا وحا اللي يرادا جساسة والجساسة دون محاي هيد بان نريد محا يرادا جساسة مركاسة وحي تري هل كان وحا كجرنين خبر كيني أخبارتي إن أنا أدب أدنين يا بل هري أسوأ صعب أو إمامة وما شكلنا عبسيبا نقل شيء بيرة تموي بداري ركبضان بينو هين لكن عبسيبا ما نقل شيء وحن نريد ورمانتا يعني وابد أصحى حرارة الوحكة لك هدان هري أسوأ راعنيبو ماشي وحا كجرنين آد أوين أعظم إنسان باماشي كحر قعمهيسا إلا هلكا
garabka ilaa halkaas iyo lugihiisa lawyaha ilaa anqawga silsilad baa sidaa ugu duuban oo xirxiran isma dhaqaajin karo. markii uuna arkay ayuu wuxuu ku sigtay inuu soo goosto xarigii, soo booday. markaasuu yidhi ayuha alqowm maa antum, maxaad ahaydeen? annagu waanu kuu warrami doonaaye bal adigu noo sheeg bal waxaad tahay noo sheeg baan anigu. markaasuu wuxuu yidhi akhbaartayda waad helaysaane, mar haddaad halkan iigu imaateen waad haysaane. maxaad ahaydeen, inteed ka imaateen ii sheega. waxaani naxnu unaasun min alcarab, qoon waxaan nahay carab ah. safiino ayaan soo raacnay, doon baan soo raacnay. hirki ayaa falaciba yani almawj, hirka ayaa nagu ciyaaraya shahran. markaasaan soo baxnay, hadda waxaan usoo baxnay xeebtan. markaan xeebta usoo baxnayna waxaan yani aanu aragnay daabadan ayaanu aragnay. markaanu aragnayna way nala hadashay. sidaasaan meeshan ku nimid oo waxayna tiri nin baa halkan yani ku jiro oo idin doonayo inuu hadalkiina aada u jecela. markaasuu yidhi antum min alcarab? nacam naxnu min alcarab. waxaan nahay anagu carab. su-aalaad buu u galay marka, calaamaad buu weydiinaya. faqaala wuxuu yidhi akhbiruunii can nakli baysaan, can nakli baysaan. meesha la yidhaahdo baysaan timirteeda iiga warrama. waa madiinatun bilurdun bayna xawraan wa falastiin. falastiin iyo magaalada meesha xawraan la yidhahda udhaxaysaa, waa meel urdun ku taalla. baysaan timirteedii bal ka warrama. markaasaa maxaad naga weydiinaysaa? macnaha timirteeda, timirteedii ma baxaysaa oo muro ma dhalinaysaa, ma baxaysaa? nacam. waxaa la gaari doonaa wakti ay wax muro ayna soo bixin, wax midho ka soo baxay ayna soo jirin. uma qaala wuxu uhi akhbiruunii can buxayrati dabariya. baddii yaraydee dabariya la ohan jiray, buxayratu dabariya iiga warrama. markaasaa nidhi maxaad naga weydiinaysaa? macnaha maxaan kaaga warranaa? baddii miyay biyo leedahay oo ma socotaa? nacam. faqaala wuxuu yidhi akhbiruunii can cayni zuqar. isha la yidhaahda zuqar la yidhahda, caynu zuqar bal iga warrama. biyaheedii ma soconayaan? dadkii meeshaa deganaa ishaas biyaheeda beeraha ma ku beeranayaan? caynu zuqar waa meel baytulmaqdis 3 maalmood looga soconayo. baytulmaqdis bay u dhowdahay, dhinaca xijaaz bay ka jirtaa. xijaaz dhinaceeda uga aadan tahay, baytulmaqdis bay 3 maalmood u jirtaa looga soconaya. markaan ishii way socotaa, sidii bay dadkii ugu beeranayaan caadi wey. faqaala wuxuu yidhi akhbiruunii can nabiyi lummiyiin. ummiyiinta nabigoodii iga warrama, ma la soo saaray? nacam baan idhi. wuu soo baxay. nabiy lummiyiin waa nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh. waa soo baxaan nidhi nabigaas. kharaja min makka wa nazala yasriba. makuu ka soo baxay, madiinuu degay. ka warrama carabta iyo asagii muxuu kala kulmay? xaalkiisu xaguu marayaa? dadkii wuu ka qaalib noqday, wayna adeeceen. carabtii way adeecday. sidaasuu yidhi. taasaan ku nidhi bu yidhi. markaasuu yidhi saasaa u khayr badan. inay adeecaan yaa u khayr badan. ayuu waafaqay. marka dajaal wuu soo bixi doonaa, markaasuu dhulka dhan mari doonaa.
ilaah baan ahay buu leeyahay hala raaco dhulka dhan buu mari doonaa ilaa Makiya Madiina mooyaane Makiya Madiina ma gali karo malaa'ig baa u diidayso ilaalinayso laakiin Madiina korkeedu fariisanaya wuxuu nabigu leeyahay yanzilu ba'da sibaq arsalka barkiisu fariisan doona Madiina korkeeda fatarjufu al-Madiina markaas magaalada Madiina ayaa gilgilan doonto waxa u bixi doona markaas kullu kaafirin wa munaafiq ba aadi doona u bixi doona raacidan nabiga alayhi salatu wasalaam dajjal markuu fasahaadiyo dadka oo dad yar oo mu'miniina ayaa soo hari doona ay dhibaato ay la kulmaan waxa soo degi doona Nabi Ciise ayaa dili doona dajjal Baytul Maqdis agteeda meel ku taanay la yiraahdo yani baabul lud yani ayuu ku dili doona halkaas uu ku haleelaya oo dili doona mar alla markuu Nabi Ciise arko alayhi salatu wasalaam wuxuu u dhalaali doonaa sida cusbado bilixdo kale biyo lagu daraacmo u dhalaalay uu dili doonaa marka dajjal wa sharru qaa'ibin yuntadar nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay nabi kasta qoomkiisiba uga digaya anigu waan kaga digaya dajjal calaamad baan idin sheegi doonaa oo nabi hortay yani iga horeeyo aan sheegay uu sajaran innahu a'war dajjal ilbu la ayahay wa inna rabbakum laysa bi'awar rabbi ma nahay buu leeyahay ilbuna la ayahay de rabbigiina awar ma aha buu nabigu alayhi salatu wasalaam ku garta calaamadaas ku garta dajjal waxa ku xigo oo soo bixi doona dabba khuruuj dabba baa soo bixi doona dabada waa xayawaan suuradeedu way weyn tahay baa la yiraahdaa afar adina way leedahay suurooyin kala duwan bay mufassiriintu ku sheegayaan waa daabada hadlayso dadku markay cibaadada ka tagaan oo khayrka ka tagaan oo ay dhibaatadu badato ayay soo baxaysaa daabadaas sida Ilaahay Quraanka ku sheegay wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum daabatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun ba Ilaahay daabad baa soo baxaysa markaas ay dadkii daabadaas sida Abu Hurayra uu warinayay rasuulka alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay waxay wadataa yani asa Musa iyo khaatam Suleymaan ay wadataa qofka mu'minka wajigiisa ayay saa u taabanaysa markaas wajigiisu iftiimaya kaafirkana saasay wajigiisa u taabanaysa markaas wajigiisa dhan madoobaanaya markuu yani usha sida ugu taabato iyo khaatamkaas Ya'juuj iyo Wamaajuuj ayaa soo bixi doona Juuj iyo Wamaajuuj waa min yani awlaadi Aadam bay kamid yihiin Yaafith bin Nuux min awlaadi Yaafith bin Nuux bay kamid yihiin baa la leeyahay waa qoom aad u fara badan oo aad u waaweyn hadda waxay ku xabaasan yihiin yani dhinacaas ka yihiin sadigii Dalqarnayn uu ku duuday jabalkii weynaa Dalqarnayn uu ku duuday ayay ku xiran yihiin mar alla markii la idmo ubay iska halkaas soo bixi doonaan waxa mufassiriinta ku soo aroortay ee qisaska inay markasta darbigaas ay qodayaan oo wax yar markay uga dhiman tahay ayuu kii amiirkooda wuxuu leeyahay berri baan dhameystiraynaa isaga soo laabto insha Allah ma dhahay marka habeenkii meesha ku loqdaan berri waxay soo toosayaan asagoo meesha ay ka soo bilaabeen way hadan isqabsadaan way soo bilaabayaan hadana halkii markay joogaan buu leeyahay berri baan dhameystiraynaa inaga keena ma oranayaan insha Allah meesha uu ku noqonayaa markii Ilaahay uu idmo waqtigeeda la gaaro ayuu wuxuu leeyahay berri baan dhameystiri doonaa insha Allah inaga keena halkii bay ugu imaanayaan inta yar ayadoo ka dhiman tahay markaas ay jibinayaan horay nooga soo dhaqaan
وقوم واحد دقيقة كرا أنجرين وح الله وحي كهر ما ذو نوع عنيا وحي صومر دونا بض بي صومر يعني كوي أسوه الريبة بدي فوق سنة قالوا دي كدم بيسوا ماشي صومر وحي ليه الماشي واه بيها كجري جريوجو قالوا دي ما كي صومر وح الله وحي كهر ما ذو نوع عنيا مركز دجال هو انتي مؤمنين تي نبي الله يعني عيسى يعني نبي عيسى يا مؤمنين تي بقى جوجا مركز يصوب بحان نبي عيسى دتك مؤمنين تهابوا بورها الله فولي دون هالكاسو كعرية المؤمنين تي مركز وحي عنا وايد دون حلي النبي عليه الصلاة والسلام أحد أيها كمله هذه رأس بقرة ورأس ثور ناف لقى مدحيس ما أنت بقول درهم أو ما أنت جوكتوي أو بقيمة بدنته بهليان ده واحد عمرهم بوايدون ما كي عريري قالان ودباتة قبضت ونقول كونن أي فسهاديان وده واحد عنان وحول بروي فوقسنا يا وحول بوي عنيان نبي الله عيسى مؤمنين إلهي بريه نبي عيسى إلهي بريه مركز إلهي وحقوق صدره يعني دحريبا لو صدره سنقال يعني حولها سنكودا كجرا مارتي markuu ila ka soo baxo sangaala leeyahay dixir noocaas oo kale taa ilaahay ku diraya markaas oo qoorta ka wada galaya halka uu ka galaya oo dhimanayaan meydkoodii baa markay iska fuulay markay ilaahay uu sida u laayay dhamaadaan muuminiintii nabi ciise iyo muuminiintii markay dabaan ay soo degaan meel lugti la dhiga ma lahadan meydkoodii baa meel kasta qabsanay markaasuu ilaahay baryaya hadana shimbira ilaahay soo diraya shimbiraha saaqaadaya marka goray mid xabad bay la kacaysa meel ilaahay og yahay uma geynayaan dhulkii baa marka nadiif noqonay furwaaqa dhacays nicmo dadka muuminiinta waxay ku noolaanayaan nicmo xoolihii baa meel la dhiga la waayi doona meel la dhiga la waayi doona qof la arko xoolihii iga qaado ku leeyahay ma qaadi karo leey tayid waan ku iga meel geeyay lahayn shalay haddaad ii keenay waan ka qaadi lahaa laakiin maanta ma qaadi karo leey wabiga furaat ya dahab wabigi baa faydmaya bihi baa meesha ka gacayo dhulka dhanba waa dahab wax dhamayn kara ma dahab kana qiimihiisa la arki la gaari laayay oo iska fadhiya waa kan wax guranaya ma xoolihii baa meel la dhiga la waayay markaas waxa imaanayo nabigu alayhi salatu wasalaam saddex khasfi baa dhici doona hadana khasfi waa dhul gariir khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jazirati al arab dhul gariir weyn wuxuu ka dhici doonaa sharqiga dhul gariir weyn wuxuu ka dhici doonaa garbiga galbeedka dhul gariir weyn wuxuu ka dhici doonaa jaziratu al arab علامات كتبنك مد أقدم بيس وحوي النبي عليه الصلاة والسلام نار تخرج من أرض اليمن دب أقوين با يمن كصبح دون لوكا يمن كصبح دون مركزي تدرد الناس ذاتك أيك حينسا إلى المحشر ودبوين وصوك عيون دنعاس وكصب باللوضي ويسايا إلى يجيس ذاتك مركز ويسعونيان مدب كان يستيقظ أما يسعونيان ترتيب مركز ويسعونيان ويسعونيان meel bay degayaan meel ba quraxda u dhacaysa way bariyaysaa way daba socotaa markii meel degaan buu u kaadinaya hadana way guurayaan oo daba soconaya meeshay ku qaylusadaan oo la qaylusanaya dabkaas meeshay ku bariyaan oo la bariya saas uu daba socod wadaya maxsharku soo kaxay calaamadaha tobanka markay dhacaan calaamada ugu dambaysa waxa weeye duruucu shamsi min maqribiha qoraxda waxay ka soo bixi doontaa dhinaca ay u dhacdo mar haday qoraxdu inta ka soo baxdo baabki toobada waa la xiray xiina la yanfa'u nafsun iimanuha lam takun aamanat aw kasabat fi iimaniha khayra lam takun aamanat min qablu aw kasabat fi iimaniha khayran baylahi markay arkaan dadku qoraxdii halka ka soo dhacday ka soo baxday kulligood iimaankay wada qaadanayaan amana billahi billahi way rumaynayaan
كي عصيانك كجري معصية كجري وتوبت كينيا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا بإلهي مركي أركان دي قرح دي هالكا كسو بعضو عذاب كينو يمد أو قيامه دعيمي أركيان دي واحد منو سجرمي أركيان مركاسي كل قد وضع الرمين إلهي بان رمين إليه وحي أن يعني عابد جرنا إلهي غير كيهانا وانك كفرنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا إيمان كودو وحبا ما ترى مركي أركان عذاب كان نجي إيمان كأيقاتين وحبا ما منفعس إلهي حيث نفعا هري الرمين أما هري أن إيمان كيد أقضى عيسنون عمل ونانسان كو قدنين وحبا ما ترى هذا إيمان كوقت غيرون باب كي توضى لحري إن توضى وحي الله ذهب رسول كله عليه الصلاة والسلام إن اللي توضى بابا توضى حين وحا أصغنات باب بل عيسى أولئك ما بين المشرق والمغرب قرحة ماشي كسو بحضين ماشي يقول على الباب لأك أيها باب التوبة اللي إلى فرن لما حري الباب كاس إلا أي قرحة كسو بحضين ماشي يقول على قرحة وآيات إلهي آيات كيسا كونيك أكمدها آيات كان إلهي قدرديسا إيا وحدانيديسا إيا وجود كيسا لو دليشني آيات كوالله آيات كونية إيا آيات تنزيلية هو قرآنك آيات تنزيلية هو قرآنك آياته قرآنك هذا اللي يسود دقيقة وإلهي كلام كيسوي آياتها كونية وعلامات كونية سماوات كامل أرضوين كامل بضحها كامل بورها كامل قرحة يضيحها كامل يحدقها كامل وآيات قرحة إلهي آيات كي سواوين بكمل هل كاسي كسو بحيسا مشرق كسو بحدا مغرب يودعنا ورسولك عليه الصلاة والسلام قرحة هل كاس بلك كسو بحدا ويسعون يسا مركي هل كا أودعنا يدعنا وحي تقيسا تحت العرش عرش الهوسيسي تقيسا مركاسي إلهي ويسجوديسا مركاس الله أمر يا وحلي النقاء صوبح ماشي أتكسو بحيسا كسو بح ويسوال الله أمنيسا مركز تواصلها مركا أقدم بيسا مركا يسجوده يا إلهي وحولي يا ماشي أقول عضي أنت كبح بقى إلهي كصبح بقى إلهي وراح ماشي أقول عضي مرها كصبح ماشي أقول عضي مرها دي كصبح ذو بابك توبة ولا حين توبة بابك يدي وعلم هذا قف أن هري إيمانك وقاذني أما عمل وناكسنا إيمانك كيسا كو عمل كو قذنين وحلقة أقبل يا مجرون على مدها واوي مركا ويسدبا جوغان بالليه وسيده كول يعني كوشه مركي حرقه laga furo kale tusbax la furay oo kale sidoo uu saga daba daadanayo saab bay saga soo daba dhacay isdaba joogaan macna ma kala dambeeyaan calaamadaha waaweyn marka tobanka calaamad mar haday yimaadaan ta ugu dambaysa mar haday dhacdo bas weey marka ugu dambayso dabayl baa imaanayso قف كستو مؤمن نفسك قادس وحيسكو سو حريه مركز لا تقوم ساعة إلا لكع بن لكع بن ساعة قيام وما دعيس إلا لكع ابن لكع قرع ابن القرع لكع وقرع وحلواي دونا ساعة قيام وما دعيس إلا لقوا أرض كور كذا وح الله يراد ساعة قيام مركي رعيسو قفكو لبا قف أيوه انتي مرضي سيدا وكلا بحيين إني قطان دونيان ومرضي ميقويسا وكلا بحيين أيه قيامه كو رعيسا أيوه سيدا وهي مرضي ساس مركي وكلا بحيين أيه ماشا كو رعيين لبا من انتو كو رعيين من انتو كو رعيين ساعة قيام وحي رعيسا قف أسيقو دربو هجاجيه ودوني إنه حواليه كو ورابي حواليه سو كو ورابسا دركيو هجاجيه مركو هجاجيه ساعة قيامة كل عيسى ماشي كل عيان ساعة قيامة حيكون عيسى قف أسوي النفس صوم علي نفك إرمان كابو عاني كصوم علي ويلكي بصلاة عنده قوة ورجع سوق عنده ساوها يون عبين بساعة قيامة كل عيسى ماشي كل عيان لقمة بوسوق هذا يا أبو النبي قف لقمة دي بوسوق هذا يا أسوي نفكي سجارسين بساعة قيامة كل عيسى ماشي كل عيان
calaamadaha waaweyn mar hadday dhacaan wax dhiman ma jiro saacadda qiyaama way dhacaysa waxaad arkaysaan walaalayaal calaamadihii waaweynaa unbaa noo dhiman ee rasuulku uu tilmaamay mooyaane calayhi salaatu wasalaam wax haray ma jiro adduunyada wax u dhiman male ummaddan maxamediyada horta waa ummaddii ummadaha ugu dambaysay 69 ummadood baa ka horaysa waa ummaddii 70aad ee ilaahay uu ku kamilay koonkan ummad ka dambaysa ma jiro ummatu aakhir zamaan way nabigeena salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxa la yiraahdaa nabiyyu aakhir zamaan aakhir zamanka nabigiisa baa leh khatamu nabiyyin way waa nabiga nabiyaasha lagu khatimay markuu nabigu hadlayay wuxuu yiri bucistu ana wa saa'a kahatayn aniga iyo saacada qiyaamo waa nala soo saaray kahatayn anagoo labada farood fartaasa wax yar dheer yar bay ka horeysaa intaas uma saacada qiyaamo ka soo horeeyaa buu nabigu alayhi salaatu way daba socotaa hadana de waxaan 15 qarni marayna Soomaa nabiga alayhi salaatu wasalaam hijradiisii Makka markuu ka soo hijrooday laga soo bilaabo يعني waxaan maraynaa 15 qarni qarniga 15 baan ku jirnaa qiyaamii waxba kama dhimano calaamaadkiisii oo dhan waa la hayaa adduunyadu meeshii u dambeysay bay maraysaa waxaan ay leeyihiin dadku horumar baa la gaaray iyo tiknoolajiyada la gaaray iyo kana la gaaray ay leeyihiin waa adduunyada meeshii ugu dambeysay garaacaysa wax dhiman ma jiro waxaan arkaysaa adduunyada hadda inay noqotay hal magaalo kale adduunyadii oo dhan 5 qaaradood ee dunida maxay noqotay hal magaalo camal bayno duwalka caalamka waxa la yiraahdaa 160 dawlad ka sii badan yihiin 260 intaasoo yani wadan oo 5 qaaradood ee dunida waxaad u malaynaysaa hadda waa hal magaalo kaliya isku noqon أنا وحي كجرودن سي وحو سعودان وقتiga la joogo saacada la joogo wax walba wala ismaqlaya wala is arkaya saacada yar baa la isugu tagaya wixii ka socday oo dhan baad arkaysaa marka adduunyada meesha ugu dambeysay maraysa way dhamaatay adduunyada way dhamaatay waxaan sugaynaa marka ma jira saacadihii waaweynaa inay bilowdaan bas un baan sugaynaa maxaana laga doonayaa marka istiعdaad baan laga doonayaa walaalahay istiعdaad baan laga doonayaa inaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala u noqono oo amal falno oo saacada qiyaamada qofku wax alla wixii uu qofku ku dhintaa lagu soo saarayaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam qofka waa la soo bixinayaa calaamaamaad calayhi wuxuu ku dhintay way qofka amal wanaagsan soo ku jira haday geeridu u timaado soo fiican baa la soo bixinaya soo xaalad xun ku jira haday u timaado adduunyada fitankeeda iyo dhibaatadeeda aad u farabatay dadkana way jiidanaysaa qof la arko waa inuu ogaado wuxuu rasuulku leeyahay alayhi salaatu wasalaam lan tamuuta nafsun نف ما ديمانيس حتى تستكمل رزقها نف ما ديمانيس الى اي رزقيده يعني دمسترت قفنا اسو رزقيسي u dhiman yahay wuxuu dhiman yahay adduunyada kama tagay nafka soo awsanaysa ittaqullaha wa ajmilu fi talab war ilaahay ka baqo oo si wanaagsan wax u doona buu nabigu alayhi salaam marka adduunyada raadinaysaan rizqigiina raadinaysaan si wanaagsan wax u dalba يا رسول الله عليه السلام أن كسر قادنا الدنيا ولا ليه الدنيا واحد من مجرى أن كسر قادنا والرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مضاعا أو هوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي من رأيه فعليك بخويصية نفسك إذا رأيت شحا مضاعا هذا أردت بخيل لمن لا داعي وهوا متبعا هوا الراعي وإعجاب كل ذي رأي من رأي قفل أرك الرأي سعد بقلي سيسلف عن قفل سيسلف علم بدن سيسلف عقل بدن سيسلف توصل قفل أرك قمنيه سبا قورته وجد سوما
qof wax loo sheegi kara maanta ma jiro qofkas ka cilmi wuxuu doonuu sameynaya qofku wuxuu rabo sameynaya daliil baan u haystaa waan yani waxaan u haystaa buu leeyahay daliil saana sax ah sida haddaad aragto facalayka bikhuwaysiyati nafsik naftaada un markaas wadac amra alcaama iskaga tag amarka caamkaa buu nabi adiga oo naftaada ku mashquul يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نفتينا كل ذلك إلهي سبحانه وتعالى توبة إلى عمل كوانك الله نوافجيه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا من لا تراه العيون ولا تخالده ظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قدر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اخذ عنا الدين وأغننا من الفقر يا أرحم الراحمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا لقدرتك علينا ولا نهلك وأنت الرجاء يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.